subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. xilliyada ka mid ah waxaa jiri jirtay tuulo yar oo lagu magacaabi jiray Kaamboor. Tuuladaas waxaa ku noolaa dad aad u yar, balse tuulada waxaa ku wareegsanaa keen weyn. Keentaasna waxaa deganaa nin ruuxaan oo dadka wadada maraya cuni jiray. Maalin maalmaha ka mid ah nin musaafir ah ayaa halkaas soo maray. Markii uu keentii u soo dhawaaday ayuu ninkii ruuxaanta ahaa dhuunta qabtay ninkii musaafirka ahaa. Waxaad soo gashay dhulkii aan anigu deganaa ee aan dadka ku cuni jiray. Kusoo dhawow, maantana lagama yaabo inaad iga badbaadid. qoorta ayaana ka jibinaya waana ku cunaya. Walaalo iska kaydhaaf, xaaskayga oo umul ayaan u socdaa. Iska kaydhaaf walaalo. Ninkii ruuxaanta ayaana waxay gaajo aad u daran, sidaas darteed wuxuu dilay ninkii musaafirka ahaa. Ninkii ruuxaanta ahaana waxaa ka baaday gaajadii. Ninkan oo lagu magacaabo Maanguu oo ahaa timajaraha ay leedahay tuuladu ayaa wuxuu maalin maalmaha ka mid ah soo aaday dhanka keynta. Ujeedka uu soo aaday keynta ayaan ahaa inuu geedaha miraha ka goosto si uu saliid uga sameeyo maadaama ay ka dhamaatay saliidihii awal u yaalay. Maantana cunto kale ayaa isoo doonatay. Waan kusoo dhaweynayaa saaxiib. Waxaan rajeynayaa inaad ka heli macaaneed doontid ninkii safarleyda ahaa ee maanta dhawada cunay. Adigana maanta ayaan dhimin doonaa hilibkaaga waana ku cuni doonaa. Ninkii timajaraha ayaana soo gastay mirihii uu saliidda ka sameyn lahaa, balse marka uu soo marayay wadada ayuu wuxuu arkay ninkii ruuxaanta ah oo hortiisa taagan. aad ayuuna u naxay ninkii. Timajare kusoo dhawow keentayda aan anigu ka taliyo. Maantana waan ku cunayaa. Lagama yaabo inay cid iga ka badbaadiso ama aad iga baxsato adigu. Qorsheeka haysaa waxaad iga qaadi kadib male bilaayo foolxumada badan. Aniga ma taqaanaa horta. Waxaan ahay nin soo laayay 100 nin. Adigoo sidaan u eegna lagama yaabo inaan ka cabsado. Aniga ma xayimo carruurta yarta ay baqsan jirtay. Waa iskibrinaysaa miya. Haddii ay dhihi lahayd saaxiibga qalle waa ku cafin lahaa, laakiin waa iskibrinaysaa. Lagama yaabo taaka ka mid in iga ka badbaado jirkaaga ka mid. Aniga bilayska ka dhigaysa bartabarta ahaysid iyo waxa sheegaysa balitusi balina cilka arbal uu ka safar isaar. Warigi qalle wana ku xayisana war saaxiibga qalle markii inta majara oo aan meesha laga yaqaan war ilmay xasba ay joogo saaxiibga qalle. Warigi qalle war saaxiib dhigay cunay. Kii Maanguu ahaana wuu soo hay kadibna maalmaha ka mid ah isagoo jooga goobtiisa shaqo ayaa waxa u yimaaday nin la dhaho Maanu oo raba in timaha loo jaro. Maanguu wuxuu macmiilkii ku yiri habeen dambe ii imow, wabiga agtiisa ayaan timaha kugu jari doonaa. Macmiilkiina wuu ka yeelay hadalkiisa. Habeenkii markii la gaaray, Maanu wuxuu tegay wabiga agtiisa, halkaas oo Maanguu si aamusan gadaal uga yimid oo uu timaha uga jaray. Maanu markuu eegay muraayadda wax sawir ah ma uusan arkin, wuxuuna gartay in qofka timaha u jaray uu yahay ninkii ruuxaanta ahaa. Isla markiiba ninkii ruuxaanta ahaa ayaa midig qoorta uga jaray Maanu kuna dilay goobtaas.